السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كيغا مركل السود وهذا آدي هذا وقوم هسنتهين داوشة ملك استوى جوبتاني ولي بسي كستا وآدي داوانا إسان واسبتي شان يطبانك بشا التضبات سنة كاللبادو كون إيا سدح ياللباتنك مقال كانوا حرابا إنا نوغا هالو لبا أرين ومد كميدا أي تهي لعقتي لوغو مقعدري قدوميها قبل مينيسوتا اللي يرادو والاس جيكس oo qaybta canshuurta u qaabilsan gobolka Minnesota ay sheegeen waqtiyada dadka reer Minnesota loo soo diri doono iyo sida aad aragteenba gabar Soomaaliyeed oo ilmo yar oo 3 jir ah oo iyadu ay dhashay oo gabar ah 10kii bishan ku dishay Pelican Rapids oo ka tirsan Minnesota maxkamadna la soo taagay gabadhaasi maxaa arrimahaasi ku sababay iyo sidoo kale maxkamadeeda labaad xilliga ay tahay arrimahaasi ayaan rabaa inaan kaga hadlo hore waxaan idinku sheegay bishii May dhamaadkeedii in baarlamaanka gobolka Minnesota ay ansixiyeen sharcigii loogu magac daray tax relief oo ay ku jirtay lacag la yiraahdo tax rebate oo dib loogu celinayo dadka Minnesota kadib markii gobolku oo canshuur lamaba budgetkiisa ay ka sara martay lacag gaaraysa 17.5 bilyan oo dheeraad ah markii gobolku helay ayaa gobolku waxa uu go'aansaday lacagtaasi in dib loogu celiyo dadka canshuur bixiyaasha ah ee gobolka Minnesota isla markaana sidoo kalena gudoomiyaha gobolku waxa uu doonayay lacag fara badan in qoysaska iyo dadka shakhsiyaadka ay shaqeeyay canshuurta xareeyay la siiyo laakiin baarlamaanka ayaa markii uu ka dooday kadib dood dheer kadib lacagahaasi waxa la isku raacay qiimaha ay noqonayaan iyo sidoo kalena hadda waxa la shaaciyay xilliga la filayo dadka inay bangiyadooda ay lacagtaasi ay ku soo dhacdo lacagtan waxa loogu magac daray gudoomiyaha gobolka Tim Walz maadaama isagu uu markii hore hindisahan lahaa uu soo jeediyay lacagtan in dadka la siiyo waxaana la yiraahdaa Wallace Jacks jeegagii ka yimid dhinaca Wallace gudoomiyaha gobolka last name-kiisa ayaa Wallace ah marka dadka helaya ee reer Minnesota ilaa 2.5 milyan oo dadka reer Minnesota ayaa lacagtaasi heli doona 1.2 bilyan ayayna gaaraysaa lacagta dib loogu celinayo dadka gobolka Minnesota degan marka gudoomiyaha gobolka sharcigan waxa uu saxiixay oo sharci ka dhigay 24kii bishii shanaad ee May marka hadda ninka madaxda ka ah qaybta canshuuraha ee gobolka Minnesota oo la yiraahdo Paul Marquette ayaa waxa uu yiri lacagahaasi waxay dadka Minnesota bangiyadooda ku soo dhici doonaan wixii laga bilaabo foolka waa xilliga geedaha ay caleemaha ka dhacaan marka waxa uu bilowdaa dhamaadka bisha September 23keeda ayuu foolka bilowdaa marka waxay macnaheedu tahay October ayaa laga yaabaa bisha 10aad dadka reer Minnesota inay lacagahaasi helaan lacagahan waxa lagu saleynayaa tax return-kii sanadkii 2021 haddii aad xareysay lacagtan waad helaysaa marka looma baahno qofku inuu lacagtan apply gareeyo oo meel buuxiyo waxyaabahaas oo idin looma baahno muhiimadeedu waxa ay tahay shuruudaha la socda waxa kamid ah gobolka Minnesota ma deganayd dhamaanba sanadkii 2021 ama 6 bilood oo kamid ah inaad deganayd ayaa qasab ama dhamaanba sanadkii 2021 inaad deganayd marka haddii aad sanadkii 2022 ama 23 aad Minnesota soo degtay lacagtan ma heli doontid oo aadan deganayn 6 bilood oo kamid ah sanadkii 2021 ama guud ahaanba sanadkii 2021 haddii aadan deganayn marka macnaheedu waxa sidoo kale ku jirta in qofku tax return-kii uu xareeyay ugu dambeyn December 31deedii sanadkii 2022 ugu dambeyn waa inuu xilligaasi tax return-ka xareeyay marka haddii aad sidoo kale January ama February tax return-kii oo 2022 aad xareysay macnaheedu waxay tahay ma heli doontid sidoo kalena waxaa jirta in tax credit la siin doono dadka guryaha iska leh iyo dadka kireystayaasha ah oo iyaguna renterska ah iyaguna sidoo kale lacag ay heli doonaan marka lacagahan sidee loo kala helaya labada qof ee lamaanaha isqaba ee tax return-ka isku xareysta iyagu waxay heli doonaan $520 marka la sale income-koodu uu noqdo $150,000 iyo wixii ka hooseeya sanadkii haddii ay sameeyaan $520 ay heli doonaan qofka shakhsiga ee individualka oo isaguna tax return-ka xareeya waxa uu heli doonaa $260 haddii income-kiisa soo galay sanadkii 2021 uu yahay $75,000 iyo wixii ka hooseeya marka sidaan idin sheegay waxa lagu saleynayaa lacagtan tax return-kii sanadkii 2021 laguma saleynayo sidoo kalena dadka caruurta leh
haddii xitaa 5 caruura 6 caruura ay leeyihiin kuma wada heli doonaan 3 caruura ayaa mid kasta waxay ku heli doonaan $260 marka meeshaas waxay noqonaysaa $780 oo lamaanihii lagu daray lacagtoodii oo $520 ahayd marka qoyska 5 qof waxa uu heli karaa $1300 ayaa qoyskaasi uu heli karaa marka ilmo badan haddii aad leedahay 3 ilmood oo kaliya ayaa lacagtaasi lagugu siin doonaa ilmaha dhan laguguma wada siinayo laakiin waxyaabo muhiim ayaa jira oo qaybta canshuuraha ee lacagtan soo diri doonta ee gobolka Minnesota ay dadka u sheegeen waxa ay leeyihiin sanadkii 2021 wixii ka dambeeyay haddii aad guurtay ama bangi accountigaadii aad iska bedeshay waxa aad haysataa ilaa iyo 5 galabnimo oo 28 bishan July ugu dambeyn in aad update ku samayso haddii aad addresskaadii bedeshay ama sidoo kalena aad bangi accountigaadii bedeshay halka aad ka bedelaysana waxa ay tahay website-ka idiin muuqda oo ah taxrebate.minnesota.gov halkaasi ayaad ka bedelaysaa marka inaad gasho ugu dambeynna xilliga deadline waa 5 galabnimo oo 28 bishan July ah waa in aad bedeshaa sidoo kalena haddii qofku tax return isaga lagu xareystay sanadkii 2021 lacagtan ma heli doono haddii qof lagu xareystay aad tahay lacagtan ma heli doontid sidoo kale meeshan meel aan la yaabay waay qofkii dhintay wixii ka horeeyay 1 bishii January ee sanadkan 2023 lacagtan ma heli doono qofkaas waaba dhintay muxuu lacag uga baahan yahay ayaa laga yaabaa inaad isweydiiso laakiin dadkiisa ayaa loo soo diri doonaa macnaheedu waxay tahay qofkii geeriyooday wixii ka horeeyay 1 January ee sanadkan 2023 lacagtaasi ma heli doono marka qofkii dhintay wixii ka dambeeyay January 1 sanadka 2023 macnaheedu waxay tahay lacagtaasi waa u helaya laakiin ka hor January 1 2023 haddii aad dhimatay macnaheedu waxay tahay lacagtaasi xaq uma lehid xogaa meeshaasi waxa laga yaabaa dadku inay confusing ay ku noqdaan sidoo kalena lacagtan loo soo dirayo dadka reer Minnesota state-ku wax canshuur ah kama qaadi doono sidoo kale tax return-ka 2023 markaad xareynayso macnaheedu waxay tahay laguma canshuuri doono laakiin gobolku waxa uu yiri federaalku waxay ka sameyn doonaan ma naqaan in canshuur laga qaadi doono iyo in kale sidoo kalena lacagahan haddii aad Wisconsin degan tahay laakiin Minnesota aad ka shaqeyso labada gobol waa daris dad ayaa laga yaabaa xadka inay degan yihiin oo Minnesota ay u shaqo tagaan haddii aad Wisconsin degan tahay oo Minnesota aad ka shaqeyso oo aad u shaqo tagto lacagtan ma heli doontid sidoo kale marka waaxda canshuur waxay sheegeen lacagahan direct deposit inay noqon doonaan xilliga fallkana la soo diri doono marka fallku sidaan idin sheegay xilliga la yiraahdo seasonadu waa winter iyo summer iyo fall iyo spring marka fallku waxa uu bilowdaa dhamaadka September 23 meelahaas ayuu bilowdaa ayaan filayaa marka October waa bisha 10aad lacagahan waxa laga yaabaa bangigaada in ay si toos ah ay ugu soo dhacaan marka arintaasi waa muhiim adiga waxba lagaaga baahno waxa macnaheedu muhiimadu ay tahay inaad sanadkii 2021 aad tax return xareysay inaad 6 bilood oo kamid ama guud ahaanba sanadkaasi aad degnayd gobolka Minnesota haddii aad soo degtay 2022 ama 2023 lacagtaasi ma heli doontid gobolka Minnesota marka waxaan filayaa intaasi in aan isla fahanay arrin la yaab leh ayaa ka dhacday 10kii bishan gobolka Minnesota gaar ahaan Pelican Rapids oo Minnesota ku taala haweeney 27 jir ah oo magaceeda la yiraahdo Sucaad Maxamed Cali ayaa waxay dishay gabar yar oo iyadu ay dhashay oo 3 jir ahayd arrintu siday u dhacday maxkamadda markii la soo taagay Arbacadii ayaa la faahfaahiyay waxa la leeyahay 3 saac iyo bar habeenimo ayaa laga soo wacay guriga ay ku nooleed haweeneydaasi kooxaha gurmadka degdegga iyo ambulance-tuna 9:42 daqiiqo ayay soo gaareen marka waxa ay arkeen gabadhan yariista ah oo afgambi u taala qaybta fadhiga isla markaana waxay isku dayeen inay CPR siiyaan markay CPR ta siiyeen oo xabadka marka laga reexay ayaa CPR ta leeyahay qofka la raadinayo in wadnihiisa dib loo soo kiciyo waxay kooxaha gurmadka degdegga ay sheegeen gabadhan yar inay xilligaasi mantagtay isla markaana ay hospitaalka loola cararay kadibna la xaqiijiyay inay geeriyootay marka haweeneydan sida anigu aan ka arkay oo hadda sawirkeeda idin muuqdaba aad ka arkaysaan waxaan filayaa maskax ahaan inaysan fayoobeen haweeneydan waxa leeyahay ninkeedii ayaa ka tagay hooyadeed ayay la nooleed marka ilmaha cunto la siinayo ama caano la siinayo gabadhan laguma haleyn jirin oo hooyadeed ayaa siin jirtay laakiin xilligaasi ma aysan la joogin marka CPR ta la siinayo waxay sheegeen kooxaha gurmadka degdegga in ay fadhiga ku fadhisay haweeneydan Sucaad Maxamed Cali la yiraahdo oo 27 jirka isla markaana ayba iska qoslaysayba waxa ay sheegtay oo maxkamadda markii la soo taagay maalintii kooxaha dacwadoogayaasha ay qireen in ay u sheegtay in ay xilli 3 saac iyo bar wixii ka horeeyay ay isku dayday in ay midig
geliso gabadhan oo ay disho mididiina fadhiga ayaa laga helay iyadoo saaran. marka waxaa sidoo kale la sheegay in ay gabadhan iyadoo afgambi u taalla yarta oo 3 jirka ay ku dul fariisatay ay ceejisay dhinaca qoorta ka qaniintay isla markaana dhuunta ay feer kaga dhufatay. waxyaabahaas oo xitaa way oynaysay gabadha si ay aamuso ay afka qabatay. micnaheedu waxay tahay marka neefti ay ku celisay suffocation wax la yiraahdo ay ku sameysay. qofkana haddii afka iyo sanka la isku qabto oo neefta lagu celiyo qofkaasi ma helayo air flowgii kasoo baxaya sanbabadiisa iyo wadnihiisa iyo dhammaanba ma helaysa. darteed qofkaasi waa uu geeriyooday. marka waxyaabahaas oo idil ayaa maxkamadda laga horqiray. Sucaad marka waxaa lagu soo eedeeyay in ay geysatay dil heerkiisu yahay midka labaad iyo waliba kan saddexaad iyadoo lala xiriirinayo dilka gabadheedii yarta ahayd. marka waxaa leeyahay ninkeedii ayaa ka tagay ceelkii ay u qabtay ayay gabadheeda ku furtay. warragow hablaha u naxa hablaha nafsadahantooda qaar waxaa jira ragga ceeriya. marka stressku aad ayuu u fudud yahay gaar ahaan dumarka inay si fudud stress ku qaadaan ama iyagu ay iswaxyeelayaan ama dad kale ay waxyeelayaan. marka sida muuqata gabadhan hadda sawirkaba aan ka arkay qof isku booqsan oo stress uu ku furan yahay oo maskaxdeedu aysan fadhin ayay u eg tahay. marka ma jirta haweeney ilmo yar oo ay dhashay iska dilaysa. meeshaas waxaa jirta in gabadhaasi maskaxiyan aysan fiyoobeen. sidoo kale qof ka mid ah ehelka ayaa markii kooxaha gurmadka degdeg ah yimaadeen waxa uu ku qaylinayay iyada ayaa dishay ayuu ku qaylinayay. marka sida muuqata hadda gabadhaasi arbacadii ayaa maxkamad la soo taagay. marka garsooruhu waxa uu ku soo daayay damaanad ay shuruud la socoto. damaanadaasi shuruudda ay la socoto waxay tahay $70,000 ayaa lagu soo daayay. waxaana la yiri ma ka ag dhawaan karto inta maxkamadeeda labaad laga gaarayo 24 bishan ah. ilma qof da'diisu ay ka yartahay 18 sano uma dhawaan karto si bulshada halkaasi ku dhaqan ammaan ay u helaan. marka waa qof laga cabsanayo in dad kale ay waxyeelayso. sidaa darteed damaanadaasi ayaa lagu soo daayay $70,000 iyo sidoo kale inaysan qof da'diisu 18 sano ka yartaa aysan u dhawaan karin. marka waxa leeyahay labadan dambi haddii gabadhan lagu cadeeyo waxa ay mutaysan kartaa midka second degree-ga waxay ku mutaysan kartaa 40 sano halka midka third degree-gana 25 sano xabsi ay ku mutaysan karto. marka isku darka waa 65 sano. marka arintaasi waa arin halis ah. dumarku aad ay ugu nugul yihiin stresska si aan hore idinku sheegay. marka waxaa jira number dadka maskaxiyan aad u malaynayso inay u xanuunsan yihiin ama in iyagu ay iswaxyeelayaan ama dad kale ay waxyeelayaan amaba ay isdilaan. number waxaa jira dowladdu sanadkii hore u sameysay halka 911 aad wici jirtay. 911 waxay ku mashquulsan yihiin waxyaabaha shilalka dilalka dhaca iyo waxyaabo fara badan. marka xilligii coronaviruska uu jiray maadaama soo wicitaanka 911ka uu aad u fara badnaa dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waxay samaysay number fudud oo la yiraahdo 988 ama 988. haddii aad taqaano qof maskaxiyan u xanuunsanaya oo aad isleedahay wuu isdili karaa amaba sidoo kale qof dad kale ayuu waxyeelayn karaa fadlan waxaad wacdaa numberkaasi 988 ama 988. waxaa kaa qaban doono dad arrimahaasi ku takhasusay. qofkaasi waa loo imaan doonaa talooyin ayaa la siin doonaa. haddii xaaladiisu ay daran tahay isbitaal ayaa la geyn doonaa. marka fadlan Soomaaliya numberkaasina waxaan filayaa horey mar inaan idinku sheega ma hubo laakiin 988 waxaa loogu talagalay oo kaliya dadka loo malaynayo inay suicide leeyihiin oo isdilayaan ama sidoo kalena ay maskaxiyan aysan u caafimaad qabin oo naftooda inay waxyeelayaan ama dad kale ay waxyeelayaan laga baqayo. marka 988 kaas waad wici kartaa. sidaa darteed ayaa sidoo kale numberkaasina loo sameeyay. dowladdu waxay sheegtay hadda 5 milyan in ka badan qof inay soo waceen ilaa iyo markii la sameeyay oo dad ama inay istilaan ku fikirayay ama sidoo kale maskaxiyan u xanuunsanayay. marka numberkaasi waa number fudud waa 988 ama 988. haddii aad aragto qof noocaasi ah ha wicin 911 because waxa laga yaabaa in haddii wacdo xitaa waxa laga yaabaa inay kugu xiraan line-kaasi ay ku yiraahdaan numberkaasi wacay ku sheegaan. marka arintaasina waa muhiim. arin kale oo muhiima dadka soo galootiga ah maalmahan dad fara badan ayaa soo wacayay oo dhahaya qareenadii dadkii soo galay 12 bishii May qareenadu waxa ay leeyihiin waxba idayman qaban karno oo kiiskiina ma qaban karno. arintaas waxa u sabab ah marka title 8 ayaa la dhaqan galiyay wixii ka dambeeyay markii title 42 oo meesha ka baxay 12 bishii May. marka haddii aadan si sharciya wadanka Mareykanka aadan ku imaanin wixii ka dambeeyay 12 bishii May sida qareenadu ay idin leeyihiin kiiskan ma qaban karno ayaa ka run ah because
sharcigaasi ay dowladdu dhaqan gelisay oo ahaa haddii aadan si sharciya ku imaanin oo wadamada aad soo maraysa intaad magangelyo ka dalbato sida Mexico iyo Panama aysan ku siinin oo waraaqdii ay ku diideen aadan la imaanin micnaheedu waxay tahay sharci darro ayaad Mareykanka ku soo gashay wayna adag tahay sida asylum wadankan intaad uga dalbato ay ku siiyaan marka arrimahaasina maalmahan ay soo gaarayeen sidaas ay haddii aad ku fikiraysa marka hadda kadib inaad Mareykanka soo aado ama wadada aad ku soo jirto arintaasi ku talagal haddii si sharci darro ah ku soo gashay entitle aid markii la dhaqan geliyo kadib waxay noqon doontaa inay kugu adkaato wadankan inaad ka hesho asylum because of sharcigaasi la dhaqan geliyay darteed aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada meel kastoo aad joogtaan iyo waliba si kasta oo aad i daawanaysaan intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkan cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo